Israa'iil ayaa mar kale waxa ay soo cusboonaysiisay dood yahayd in muwaadiniin u dhashay dalka Falastiin loo soo rari doono qaaradda Afrika gaar ahaan deegaanada maamulka Somaliland iyo Jamhuuriyadda Kongo. Hadalkan ayaa waxa soo ifbaxay xilli la sheegay in la taliye sare oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu xiriir dhow la sameeyay maamulka Israa'iil iyo Jamhuuriyadda Kongo. Warbixintan waxaan kugu wadaagi doonaa maxay tahay sababta hadda ku soo beegmatay in warkii ahaa muwaadiniin u dhashay Falastiin loo soo rari doono qaaradda Afrika gaar ahaan deegaanada Soomaalida dhanka waqooyi. waxaana sidoo kale warbixinta aan kugu wadaagi doonaa maxay ka yiraahdeen Kongo iyo Somaliland xiriirka ay la soo sameysay haweeneyda la taliyaha sare ka ah xafiiska ra'iisul wasaaraha. Soo dhawaada waxaan ahay Abdifataax Durdur halkaan naga daawanaysaana waa Durdur TV. wargeyska caanka ah ee Haaretz ee ka soo baxa Israa'iil ayaa daabacay warbixin muujinaysa dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo la xiriira mustaqbalka dadka Falastiiniyiinta ah ee ku sugan marinka Gaza. Warbixintu waxay sheegtay in Carolina Kilik oo ah la taliyaha ra'iisul wasaaraha Israa'iil ee arrimaha caalamiga ah ay xiriir la sameysay dalal iyo deegaano dhowr ah oo ay ka mid yihiin maamulka Somaliland iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo. ujeedada xiriiradan ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay in la sahmiyo suurtagalnimada ah in Falastiiniyiinta lagana raro Gaza la geeyo qaaradda Afrika iyadoo qorshahaas loogu magac daray hijro ikhtiyaari ah. Haddaba xiriirka ay la sameysay haweeneydaasi maamulka Somaliland iyo Jamhuuriyadda Kongo, warbixinada ugu muhiimsan ee laga qoray ama qodobada ugu muhiimsan ee looga hadlay ayaa waxa uu ahaa xiriiradaasi waxay ahaayeen kuwa hordhac ah isla markaana aan weli gaarin heer rasmi ah, iyo in dalalka iyo deegaanada lala xiriiray aysan si cad u aqbalin qorshaha. waxaana muuqata in aysan jirin horumar la taaban karo oo laga sameeyay xiriirkaasi. qorshaha hijro ikhtiyaari ah ayaa muran badan dhalin kara maadaama ay jiraan su'aalo ku saabsan sida ay dhab ahaan ikhtiyaari u noqon karto xaalad dagaal iyo go'doon jirta. iyo sidoo kale qodobada ugu muhiimsan ee xiriirkaasi looga hadlay ayaa waxa ahaa in arintan ay sidoo kale la xiriirto doodaha caalamiga ah ee ku saabsan mustaqbalka Gaza iyo xal u helidda colaadda muddada dheer socotay. falanqeeyaasha ayaa tilmaamaya in dadaaladan ay ka tarjumayaan aragtiyo ka jira gudaha maamulka Israa'iil oo doonaya in xal loo helo Gaza iyadoo dadka deegaanka laga rarayo halkii xal siyaasadeed oo gudaha ah laga raadin lahaa. si kastaba haatee arintan waxaa si weyn uga hor imaan kara beesha caalamka gaar ahaan marka loo eego sharciyada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. ilaa iyo hadda dadaalada la sheegay ma aysan dhalin wax natiijo ah, mana jirto caddeyn muujinaysa in dalalka iyo maamulada lala xiriiray ay aqbaleen ama ay diyaar u yihiin qaabilaadda Falastiiniyiinta.